السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يركسو دوادا وحي ورا نتكاهيني عالمك إيا سومالي دا يوتيوب كينان بدي بري channel وركن لغا سو غادا إيا عالمك وحا ugu horeeya dawladda kumeel gaarka ee Venezuela ayaa sheegtay inay midaysan tahay oo ay taageersan yihiin Maduro inkastoo la qabtay arrintan ayaa dhalisay falcelin caalami ah waxaana la filayaa kulamo degdeg ah oo golaha ammaanka oo golaha qaramada midoobay ah madaxweyne Donald Trump ayaa digniin culus u diray Zelensky resign kana hadlay qorshaha Mareykanka uga faa'iideysanayo saliidda Venezuela sidoo kale xildhibaano Mareykan ah ayaa dhaleeceeyay howlgalka iyagoo sheegay inaan baarlamaanka lala socodsiin dhanka kale North Korea ayaa gantaal balastiga ku turtay badweynta bari taasoo kor u qaaday xiisadaha gobolka Kuuriyada Koonfureed sidoo kale Iran ayaa si kulul uga jawaabtay hadallo Trump oo ku sheegay in Mareykanku ka badbaadin doono dad dibadbaxayaal ah iyadoo dalkaasi uu ka socdo mudaharaadyo banaanbaxyo la xiriira dhaqaale xumida madaxweynaha koonfurta Kuuriya ayaa booqasho rasmi ah ku tagay Beijing taasoo horseedi karta horumar ku saabsan xiriirka labada dal dhanka kale wararka naga soo gaaraya Soomaaliya shil baabuur oo khasaare geystay ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada Bardaale ee gobolka Baay halkaas oo ugu yaraan 3 qof ku dhinteen laba kalena ku dhaawacmeen ciidamada amniga ayaa goobtaasi gaadhay si ay u baaraan shilkaasi dhanka kale wararka naga soo gaaraya Somaliland shir socday 2 maalmood oo ay isugu yimaadeen aqoon-yahanka iyo indheergaradka reer Somaliland shirkaas waxa lagu gorfeynayay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arrimaha aqoonsiga Somaliland fiisaha iyo mideynta dadka waxaana laga soo saaray talooyin iyo warmurtiyeed dhanka kale waxaan ku geli jirnaa wali wararkii Somaliland ila waraadyo soo xoogeysanaya ayaa tibaaxaya in Somaliland warar ku soo maqan yihiin oo ay qorsheynayaan wadamada cadawga ku ah sida Masar, Sacuudiga, Turkiga, Djibouti iyo Soomaaliya oo caawa kulamo khadka ku yeeshay ayaa go'aan kama dambaysa qaatay weerar toos ah in lagu qaado Somaliland saacadaha soo socda dhanka kale shacabka Djibouti ayaa caawa wacad ku maray inay gacanta ku soo dhigayaan kaligii taliye Ismaaciil Cumar Geelle banaanbaxyo waaweyn ayaa ka socda kuna sii dhawaanaya xarunta madaxtooyada ee looga taliyo waddanka Djibouti ila daawada waatan daawadayaal waa ku mahadsantiin daawashadiina waxaan waridi ka haynay caalamka iyo Soomaalida waa naga inta caawa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh subscribe like share akhay loobina bye